الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سو dhawaada dhamaantiin waa casharaantii aan ku baranaynay higaada luqada carabiga. waxaan soo bilownay darsigeena kan ka horeeyay kasrada iyo hoos dhiga marka la hoos dhigayo xarafka carabiga qaabka loogu dhawaaqo. waxaan ku soo qaadanay darsigeeni hore halka xaraf hoos dhigan iyo qaabka loogu dhawaaqo. maanta waxaan qaadan doonaa marka la doonayo in la hoos dhigo laba xaraf iyo qaabka loogu dhawaaqo. xarfayn maksuurayn laba xaraf oo hoos dhigan iyo qaab dhawaaqoodu sida uu noqonayo ayaan cashirkeena ku qaadan doonaa haddii Allah wada la ogolaado. soo dhawaada mar kale waan isku guda galanaa yalla ala barakatillah. waayahay xarafku markuu kelidii hoos dhigan yahay hadda ba'dani kelmad bilowgeeda ay taalaa qaabka ay u qoran tahay waad garanaysaa duristii hore ku soo qaadanay wayna hoos dhigan tahay. waxa lagu dhawaaqay marka يعني waxa weeyaan b ayaa la oranayaa darsigeeni kan ka horeeyay aad ku soo qaadatay ba hoos dhigan waxa lagu dhawaaqayaa b. haddaynu ku soo darno tusaale ahaan ba kale lamid baan ku soo daro wax biyaan isdhibin labadan ayaa la isku daraya. marka isku darkoogu wax weyn maaha waa sidii aad ku soo qaadatay fatxada ama kordhiga tan waa b tan waa b. haddii la doono la isku daro b b lama oranayo oo kala goynin waynu isku dari jirnay markay kordhigiin ba baba baa la dhihi jiray. maanta markay hoos dhigan yihiin bb un baa la oranaya isku dar bb b b bb okay bas hadii bedel adigu hadda hadaynu halkan ta ka dhigno de maxay noqonaysaa bt hadaynu sa ka dhigna ka war bc hadaynu jim ka dhigna ka war bg hadaynu xa ka dhigna ka war bixi hadaan kha ka dhigna ka war bixi halka saasay ku soconaysaa. waynu ka dhigaynaa soo fiiri. waayahay halkan hore bacdaan baynu iska adeegsanaynaa bacda hoos dhigan marka ba hoos dhigan waa maxay b way tanaan ku soo daray akhri maxay noqonaysaa ta hoos dhigani t isku dar bt way b ayaa hadana inoo taala waxaan ku darnay sa hoos dhigan bc b ayaa hadana inoo taala ba hoos dhigana jim ka hoos dhigan baynu ku darnay g way isku dar bg b xi bixi b xi bixi b di bidi b zi bizi b ri biri. way waa la yareynaya raadu markay hoos dhigan tahay markaynu kor dhigan oo weydiin jirnay ro baynu oran jirnay. hadda waxaan leenahay ri b ri biri b zi bizi b si bisi b shi bishi b si bisi b di bidi b ti biti b zi bizi b ci bici b ghi bighi b fi b fi fadi baan ka tagaa laga yaaba biki b li bili b mi bimi b ni bini b hi bihi b wi biwi b yi biyi biyi b e وهمزدي markasa be ilan ba kale baynu ka bilownay baad waxaan ku xidhin ba kale hadda hamzadii baynu ugu dabaysan marka be haye be way wuxuu isweydiinayaa qofka inagu cusbi oo hamzadan maxaa laba jeer soo celisay be maxaa ka wadaa. waxaan ka wadnaa sheekhow hamzadu markay hoos dhigan tahay kelmadda aakhirkeegana ay dhacdo ilaan hadda kelmadda aakhirkeega taala ay la soco kelmadda bilowgeeda haday dhacdo alifun bay dul oo lii jirtay haday kor dhigan tahay haday hoos dhigan tahayna aliftun baa la hoos dhigay oo hoosteeda la dhigay macal madaxa yar hoosteedun baa la dhigay waa haday kelmadda bilowgeeda dhacdo. laakiin haday kelmadda dhexdeeda dhacdo ama kelmadda aakhirkeega dhacdo sida imika kale kelmadda aakhirkeed bay taala hadda baa ka horeyso ku xidhan iyadina waxba kama si dambeeyaan marka kelmadda aakhirkeed bay taala. marka kelmadda dhexdeeda haday dhacdo ama aakhirkeega ay dhacdo sida imika kale markay kor dhigan tahay kordhigii horeyna soo qaadanay waxa la sameyn jiray mar alif la dul dhigi jiray
marna waaw baa la dul dhigi jiray marna ya baa la dul dhigi jiray laakiin hoos dhiga darsigani kan kor waxaan ku soo qaadanay waaw ma dul dhigi karta ama alif bay hoos dhigmaysaa sida halkan oo kale ama ya bay dul dhigmaysaa sida halkan oo kale marka alifta lama dul dhigaye waa la hoos dhigaya hoosteeda la dhigaya xarakada iyo madaxiya raacinkaba ya alifta hoosteeda la dhigaya laakiin ya-da iyada waa la dul dhigayaa xarakadii baa hoosta la dhigaya hoos dhig ahaa tamaam daawan isla fahniman malanaya qaabkaasaa lagu dhawaaqaya labada xaraf markay israacaan waa sidii yani wax cusub oo weyn oo soo cusub ma jiro mar haddaad xarafka in marka la hoos dhigana b t g xi khi ilaa iyo aakhirkeeda saa loogu dhawaaqaya aad barato wax kugu cusub ma jiro laba xaraf marka la isku darayo in hadalka la yara gundhinayo bb la odhanayo oo aan la kala jarin b aan la dhahayn b c tusaalaan la odhanayo b c la odhanayo waxaad kusoo qaadatay darsigii kordhigaad kusoo qaadatay isku darkaas oo waa qaacidada aynu ku shaqeyno waayahay dee dabcan marka wax la aqrinayana lagu shaqeynayo oo dee wax lama kala iminka halkan waxaa ku qoran alxuruuf almaksuura lama dhigi karo alxurufu almaksura saa waa ceeb waxaas lama idhaahdo waxa weeye alxuruuf almaksura unbaa laleeyahay halkaa qoraalkaas insha allah waad gaari doontahay qaabka loo akriye marka waxaa looga socdaa tanna waa sidoo kale marka qaacidada hadda wax isku darsamaanba si wax hadalka la gundhinayo kale iminka tusaale ahaan halkaa ilaa iyo halkaa aynu hayno ilaa halkaa jiimka haddii ilaa halkaa khada haddii akhri lagu idhaahdo ma odhanaysid b b b t b c sax taa in loo kala jarjaro lama rabo waxaa la rabaa in la idhaho b b b t b c b g b xi b khi oka saa in loo akhriyaa la doonaya oo hadhow qur-aanka aad tiraahdo dee caadi ina aladiina qaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu atiraha la doonaya inaad yani kala googoyso oo kelmad u akrida lama rabo ina aladiina qaluu lama rabo de ma fahamti marka waa la isku daraya akhrisku waa noocaas marka adigu waxa laga rabaa haddaba qaabka markaad labadan saas ku darto b b b t b c halkaa ilaa halkaa bal laynka hal mar inaad isku darto isku day haddana laynka kale hal mar inaad isku darto haddana laynka kale hal mar inaad isku darto haddana laynka kale hal mar inaad isku darto haddana laynka u dambeeya hal mar inaad isku darto marka labaadna labadan layn inaad hal mar wada tiraahdo labadan layn hal nafas ama hal naqas aad ku akhrido haddana saddexdaba inaad haddana ku akhrido gebi inaad haddana ku wada akhriyi karto maxay adoon neefsan hal nafas aad ku akhri karto ood odhan karto b b b t b c b g b xi b khi b d b z b ri b z b c b shi b si b di b ti b zi b ci b ghi b ki b li b mi b mi b ni b hi b hi b yi b i b i hey waa dad yara istaagta dhib male moogtahay war waxaa la doonayaa niyow inaad yaa sidaa warkaaga aad u caddayso waa ka soconayaa sidii caadadaynoo ahayd ee darsigii horeba aanan yani ugu kaaftoomin xaraf keliya la hoos dhigayo cidla yaalla ee xuruuf kor dhigana ku dhex darnay labadan xaraf ee caawi noo hoos dhigana waxaynu ku dhex daraynaa xuruuf kor dhigan bal hadda soo fiiri waxaynu leenahay waxaanu qaadanaynaa xarfayni maksuurayn laba xarafoo hoos dhigan oo laakiin la jira maxay maca axrufin maftuuxa xuruuf kor dhigan bay la jiraan waa inakan halkan waxaa noogu yaalla labadii xaraf ee hoos dhignaa waa ku caseeyey xarafkii kor dhignaana qalin madow waan ku qoray soo fiiri haddaba hadda halkan waxaa yaalla b marka la hoos dhigo miimka marka la hoos dhigana mi fada marka lakor dhigana fa saddexdaas ku akhri haddaba waxaanu leenahay b fa b fa mi b fa mi waa qaacidadeenu baa shaqeynaysa yani waxa weye xaraf walba xarakadiisa iyo nooca uu yahay un ka warhay kani hadda waa ba way hoos dhigan tahay tani waa fa way kor dhigan tahay tani waa miim way hoos dhigan tahay xaraf walba nooca uu yahay iyo xarakada uu sito intaan ka warhay kadibna isku akhri isagii xarakadiisa waa b fa b fa mi b fa mi waan la dabagelaya haddaba way li ba liba la libala di libala di waad arkaysaa waa laam hoos dhigan ba kor dhigan laam kalo kor dhigan daal hoos dhigan sidaa u gara horta li ba liba la libala di libala di oka tanna sidoo kale u garo waa maxay waa ba hoos dhigan waa nuun kor dhigan waa siin kor dhigan iyo ba kaloo hoos dhigan haye isku akhri haddaba bi na bina sa bina sa bi bina sa bi waa ku kaa tanna waa maxay xuruufta sheeg iyo xarakaday wataan waa ba hoos dhigan waa sa kor dhigan waa miim kor dhigan waa nuun hoos dhigan waay waxaan leenahay bi sa bisa ma bisama ni bisamani waay kuwan haddana sheeg iyagana waa ta kor dhigan
ميم كردجن عين هوس دجن ها هوس دجن اسكو اخر طبعا طا ما طامع عي طامعي هي طامعه واي halkan waa maxay waa waaw kor dhigan waa laam kor dhigan waa daal hoos dhigan waa haa hoos dhigan sidaa u sheeg horta kadibna isku akhri waa la wala di waladi hi waladihi waay halkan waa maxay waa kha kor dhigan waa ta kor dhigan waa hamza hoos dhigan waa haa hoos dhigan leelis baa ku soo socda adiga lagu weydiin doonayo hadda aniguna la soco waxa leeyahay kha ta khata i khata'i hi khata'ihi waay tan waa maxay waa ba hoos dhigan waa qaaf kor dhigan waa daal kor dhigan waa ra hoos dhigan bi qa biqa da biqada ri biqadari haye halkan waxay noo yimid haddana ba hoos dhigan siin kor dhigan ba kor dhigan ba kale hoos dhigan waxaan leenahay bi sa bisa ba bisa ba bi bisa ba bi fiiri bi sa bisa ba bisa ba بي بسبب wax laba boqodo he midna kor dhiganta midna hoos dhiganta markaan yarada diji kulo hadalka gundaan kulahay kaagama jeedo wax ikhtilaas la yiraahdo iska ilaalinaad haro wada gundiso oo xuruufti qaarna aad si fiican ugu dhawaaqdo qaarna ay qarsoomaan oo salaanta bisababi hawlani bisababi tii horaad yani khafiifs caadi bisababi labadaba si fiican ugu dhawaaq bisababi way halkan hadana waxay noo yimiday ويرى ده تابتني الله إلهي وسيد لو بهني لبدي حرف هوس دغنا كو عسي لام كاس هو هوس دغن yahay dood kaasina waa hoos dhigan yahay inta kale waa kor dhigan yahay marka maxay noqonaysaa waa miim kor dhigan ra kor dhigan dood kor kaaf kor dhigan doodka iyo laam kaasina waa hoos dhigan yahay aan isku akhrin hadaba li ma lima ra lima ra di lima radi ka lima radika magaasa li ma lima ra lima ra ضي لمرضك لمرضك واي hadana waxa noo yimid afar xaraf oo kana ka kooban yahay oo ka horeeyo ku dambeeyo si kor dhigan yihiin labada dhexda ku jirna hoos dhigan kaafa horeeyo kor dhigan yahay daal ba ku xigo hoos dhigan yahay baa ba ku xigo hoos dhigan tahay kaafa ku xigo kor dhigan yahay ka di kadi bi kadi bi ka kadi bi ka isku dhaadheerinin ka di bi ka isku wadan khalad weeyaan kordhiga markaan soo maraynin waan baraarujinayaan la dhaadheerin hoos dhiga markaynu maanta maraynana waan baraarujinay darsiga kan ka horreeyay lama dhaadheerin karo waa war kale inoo soo socda haddii la dheereeyo halka ay galaysaa markaa soo gaagaado waxaad tiraa ka di kadi bi kadi bi ka kadi bi ka okay waxay noo yimid haddana kuwan kale ay noo yimiday waa xaraf hoos dhigan mid kale kor dhigan mid kale hoos dhigan mid kale kor dhigan cajiib hoos dhig kor dhig hoos dhig kor dhig وسين كهرية هوس يعني ميم كرد جنب كحيجة نون هوس جنب كحيجة كاف كرد جنب كحيجة إحنا ورانا سي ما سيما ني سيما ني كا سيما نيكا سي ما سيما ني سيما ني كا سيما نيكا واي درسي نعاو أنت سيكون إجهي والله بحرف وهوس لجن هسا هتكون حجة حروف كرد أينو هلك هكو قاعدني تدريبات كأينو وجود بيننا التدريبات الثلاث بين الرجلين تدريب قيمة كوبات وحن نقنيسا إن لو كان محي وحن كينا يا فيري يعني وحويان لبضي حرف وكلية هوس دقنا وحن سسمي حرف كي يعني وحويان هراء بعضها هاوان داي لكن وحن ببدلي حرف كان ضمبه أيان عسي يعني وحويان بعضها halka marka bacba ku taala halkan hadana tacba ku taala marka adigu halkan bedel waxaad ku bedeli doontaa xuruufti kale aad ku bedeli doontaa hadda halkan ta ku bedel oo sa ku bedel oo jim ku bedel oo xa ku bedel oo kha ku bedel oo ka saasaad ku wadaysaa ilaa aad ka soo gaarayso yani waxa weeyaan kelmadda soo fiiri ilaa aad ka soo gaarayso aakhirka aad ka soo gaarayso hadda waa kan halka hamzada la ka soo gaariso marka xarafkan baadan rabay in la bedelo afwan xarafkan baadan rabaa in la bedelo oo maxay laga dhigo oo ta tusaalahan laga dhigo tusaalahan aad qorto meesha tb haye hadana aad qorto waxa weeyaan halkan hadana sa ku bedesho oo tara maxay
يعني halkan hadana sa ku bedesho isla yadin sa ku bedesho hadana jim ku bedesho hadana kha ku bedesho hadana kha ku bedesho marka waxaad samaysaa xarafka cas ma ahine ka madowad bedelaysa tamaam اسمعنا نمرنا marka xuruftan caadiga iyagu ba ta sa ku socda ee hoos dhigan b t c g kuwaas ku yeelin ee cas laakiin xarafka midowga ku qoran bedelo waxaad ka dhigtaa hadda ba ku tarsoma hoos dhigan ta hoos dhigan ka dhig hadana sa hoos dhigan ka dhig hadana he jim hoos dhigan ka dhig hadana yani ha hoos dhigan ka dhig hadana kha hoos dhigan ka dhig ila aakhiraha sidaas u bedel qaybta koobaad tadriibaadku sidaas ayay noqonaysaa qaybta labaad ee tadriibaadku waxay noqonaysaa sheekho qaybta labaad ee tadriibaadku waxay noqonaysaa xuruftan ayaan keenayaa waa qaybtii labaad ee caawa darsigeenu waxay ku saabsan tahay xuruf yani waxa weeyaan qaarna ay hoos dhigan yihiin qaarna ay kor dhigan yihiin oo waxaan sameeyay kuwii kor dhignaana qalin madow ayaan ku qoray sidii saxda ahayd yani darsiga ba adeegsanayni kuwii cas yani waxa weeyaan hoos dhignaana qalin casaan ayaan ku qoray akhriskooga laga rabo marka xabada horeysa ana ku akhrinaya li a li'a ma li'a ma li li'ama li marka aan ku celiyo li a li'a ma li'ama li li'ama li kana ma ku dara bi sa ka ni bisa ka ni ku cesho bi sa ka ni bisa ka ni way labadan isku daray hadaba labadan aan akhriyo li'ama li bisa ka ni saasala dhahay li'ama li bisa ka ni sidaas samee adiguna xabadan goonideeda ku akhri qaacidadii tanna qaacidadii ku akhri adoo sidoo kale jarjaranaya kadibna labadan isku dar tan qaacidadii ku akhri tanna qaacidadii ku akhri kadibna labadan isku dar tan qaacidadii ku akhri tanna qaacidadii ku akhri kadibna labadan isku dar tan qaacidadii ku akhri tanna ku akhri kadibna labadan isku dar tan qaacidadii ku akhri tanna qaacidadii ku akhri kadibna labadan isku dar inta ka shaqeey bis wax kala qaban hadii marka taa qaacidadii si fiican ugu akhrido haddana tan si fiican ugu akhrido hadda tii hore ka baxsato ee tii hore ku celi dib male tii hore qaacidadii ku celiyo fadhiis oo tusaale imika tan oo kale li'amali marka tiraahdo akhrido ku yiri celi li'amali halka dhig kadib haddana tan qaacidadii ku akhri bisa ka ni oo li'amali ba baxsato ku celi marka hadda waxaan uga dan lahaa warka mar haddana akhrin karayo sheekh maxamed naga daalinaysan inuu laba isku darno waxaan kaaga daalinayaa sidaan kuu sheegay lama rabo markasta inay qaacidadii ku daba socoto ilaa iyo adigoo qof weyn oo waxa weeyaan qiraa'adii ba dhameeyay inaad haddana waxa weeyaan ay qaacidadii ku daba socoto oo li'a ma li'ama li dahay salama doonayo saa indhaha ugu qabatayna li'ama li kaga siisaa la doonayo arrintaasna kuma imanayso ilaa yani waxa weeyaan bitadriib inaad carabkii ku laylido ood ku tababarto mooyaane waxa weeyaan kuma imanayso ciyaar kuma imanayso marka intan hore isdaali insha Allah kadib ayaad ku raaxaysan doonto way التدريب يعني التدريبات الثلاث قيبتها صدحات waxaynu ka dhigi jirnay culimo qaybteeda saddexaad maxaynu ka dhigi jirnay uktub ma yumla alayka nurij waxa lagu yeernay qor waxa la yeernay biطريقه عشوائيه qaab isku dhaxtasan baa lagu yeernay yow casharantayna caawa qaadanay ayaa waxa weeyaan كل بمد لغو سو قبنay qaybta labaad waxa lagu yeernay biطريقه مرتبه qaab tartiibsan baa lagu yeernay duruusteena caawa qaadanay xabadii u horeysay ilaa xabadii u dambeysay ayaa si tartiib lagu yeernaya deedna waa ad qoraysaa haddii aad weydiin dhihi jirnay qof qaabkan ku caawiya labada qaybood ee hore ayaa kugu filan doona waxa rajaynaya darsiga inaad ka wada faa'iideysateen gaarsiiya cid kasta isleedin waa anfacaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته